xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka iyo wadani Khadar Xuseen Cabdi iyo afayeenka xisbigaasi Barkhad Jaamac Batuun oo maanta shir jiraayid ku qabtay xarunta dhexe xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa xarigii dhawaan lagu kacay waxa ay ku sababeeyeen isku day ka fashilmay xukuumadda Soomaaliland waxa kale mas'uuliyiintaasi halka ku soo bandhigeen waxyaabihii ay la kulmeen muddo 9 daraarood ay ku xidhnaayeen xabsiga ay u jirto inay shacbiga reer Soomaaliland adeeg ay u fidiso dawladnimadu waxaad moodaa in fahamkeedii lumay laakiin dawladnimadu waa inay dadka adeeg u fidiso biyo siiso caafimaad siiso waxbarasho siiso nolol u abuurto rajo u abuurto taas weeyaan ta aan doonano inaan helo taas weeyaan ta aan u taaganahay inaan helo taas weeyaan ta aan wadi doono inaan helo ama hana loo xidho maxaan ku dhahaa ama hana loo dilo ama hana loo dhibaateeyo laakiin waa ta aan laaxin ka jirahaynin dariiq kasto ay leedahay oo sharcigaana aan maxaan ku dhahdaa u mari doono hadii Ilaahay raahdo sidii taa loo gaari lahaa maxaan ku dhahdaa loo heli lahaa intimidation xariga waxa laga yaabaa inay dadku ujeedooyin kala duwan ay ka leeyihiin laakiin haddii ujeedadu ahayd ha ku istaagaan ninkaasi waa inaan habeenna jirin habeenna seexan xarig kuma istaagayno runta kagama gabanayno xaqiiqada inaanu sheegno kagama gabanayno marka horeba sharci darro maanaan sameynaynin imikana sharci darro ma sameyn doono hadii Ilaahay raahdo insha Allah laakiin tiise waxa xaq u yahay iyo waxa runtu tahay ma kala baqsan doono inaanu maxaan ku raahdaa sheegno isku day fashilmay weeye haduu isku daygaasi ahaan nimanka xidho oo dabadeetana haga badaan waxa weeyaan waa isku day runtii fashilmay iyo dabagala waxaan u laharto Ilaahay baa qadarayna taliya noqoto Ilaahay baana qadaray inta taliyaha ahaanaso inaad dulmi geysato inaad aniga xidho inaad madaxda xisbiyada xidho in cid gaar ah taarget garayso daba gasho kuma si haysan karas intii Ilaahay ku qoray in baad joogaysaa intii Ilaahay ku qoray ayuun baad joogaysaa laakiin tiisa maxaad ka tagaysaa inaad isweydiisaa muhiim maxay ayaad ka tagaysaa inaad isweydiisaa muhiim maanta booliiskeenu duruuf adag buu ku nool yahay maxaan ku dhahdaa oo ku shaqeeya askari $100 wax ka yar qaata caruur leh maxaan ku dhahdaa nolol adag ku jira dhaganugul oo fiican ku dhageysanaya ayaad maxaan ku dhahdaa kugu ag xeerano Ilaahay mas'uul oo adiga kaaga dhigay kuwa noloshooda inaad wanaajiso u doodo oo wuxuu doonto mushaharka in loo kordhiyo u doonto noloshooda in kor loo qaado aad u doonto taas baad sharaf iyo magac iyo maxaan ku dhahdaa karaamo ku helaysaa oo maxaan ku dhahdaa lagugu xasuusan doona runaantii muhiim booliisku reform booliiskeenu baahan in isbedel lagu sameeyo baahan saldhigyadeennu waxa weeyaan kulligiin waa ka wada war haysaano yaani duruufta iyo sida yihiin meel loo aanu qof ku noolaan karin inay tahay runtii way aad bay u cadahay waxa jira inaanay nadaafadoodu fiicnayn in xaaladoodu aad u xun tahay in maxaan ku dhahdaa qofku marka la soo xidho ee la bahaleeyo waxa condition meelaha sharcigu ka jiraan aanu ka hadlaya markan ma ka hadlaayo meel aanu sharci ka jirin hadaynu ka sheekeynayno waa sheeko kale waxa ka in qofkan la ogaado noloshiisa qofku ma xanuunsanaya caafimaadkiisu muxuu leeyahay markaas aad ka fikirto halkeed ku xidhaysaa qofka meel caafimaadkiisa iyo noloshiisa ay ku sii jiri karto inaad maxaan ku raadaya aad ku xidho siyaasadda hadii uma naanimanin maaha cake maaha siyaasaddu waa challenge keedana diyaar baan runaantii aan u nahay laakiin adiga magacaaga iyo sharaftaadu kuma jirto in lagu raahdo cid gaar ah daba soo xidhxidh ama aad adigu u fahamto in sida lagu soo diray waxa lagu soo diray in qarankan booliiskiisa hagaajiso ka dhigto institution shaqeynayo la jaan qaadi kara institutionada booliiska maxaan ku raahdaa caalamiga marka dadkii Muuse doortay waxaan hubaa dadkaasi dad wanaagsan bay ahaayeen nolol bay doonayeen rajay doonayeen dawladnimay doonayeen hadii wixii ay doonayeen waxa maanta socdo yahay iyo sidaynu maanta nahay hadii wixii ay doonayeen yihiin madaxweynada taageeradii hala si garab istaagaan laakiin hadii wixii ay doonayeen aanu ahayn
oo aanu wadin oo ku ballan furay de waxa laga doonayaa badbaadada Soomaaliland maanta iyaga dusha u saaran tahay jinni ninkii keena saara marka waxa laga doonayaa inay gabashada iska daayaano ay banaanka u soo baxaano dad badan oo taageerayaashii kulmiyaha hoos bay u faqaan hoos bay u hadlaan wallahi waa run waan ognahay annaga nala hadlaan annaga noo yimaadaan way noo sheekeeyaan dhibaatada wadanka ka jirtay ka sheegaan laakiin waa inay bareeraan ay ragnimo yeeshaan kor u hadlaan Maxamed Nuur Ciise telefishinka bulsho Hargeysa